asxaabta ku xiran janalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin maanta waa sabti waana 7 muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago xildhibaan Republican ah oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka gaar ahaan aqalka wakiilada lagana soo doorto gobolka Minnesota ayaa dadka soo galootiga ah oo Soomaalidu ay ku jirto waxa uu yiri waa in aad ku milantaan shacabka Mareykanka haddii kale aad dib ugu laabataan halkii aad ka timaadeen arrintaasi oo cambaareyn xoogan uu kala kulmay Ilhaan Cumar oo u jawaabtay maxay tiri sidoo kale Jaylani Hussein oo isaguna hay'adda xuquuqda muslimiinta u dooda qaybteeda Minnesota oo isaguna u jawaabay xildhibaankaasi muxuu yiri xildhibaankan Tom Emmer ayaa la yiraahdaa bishii January ee sanadkan ayaa sidoo kale waxa uu soo saaray sharci amaba uu soo bandhigay sharci la doonayo in dhalashada loogala laabto dadka muwaadiniinta Mareykanka ah ee 10 sano gudahood muwaadiniin Mareykan ahayd kuwaasi oo lagu helay musuqmaasuq inay argagixiso ku biireen ama xiriir ay la leeyihiin inay basaasnimo sameeyeen iyo sidoo kalena in ay dambiyo waaweyn galeen arrintaasina sidoo kale waan idin la wadaagaya mid ka mid ah dhalinyaradii Soomaalida ahayd ee lagu haystay kiiskii Feeding Our Future oo wadanka Mareykanka ka baxsaday ayaa qamiistii FBI-da Mareykanka oo kaashanaysa ciidamada sirdoonka waxay ku qabteen magaalada Muqdisho waxaana la filayaa in Mareykanka la keeno ninkan waa qofka ku xigay haweeneydii cadaanka ahayd Amy Park ee bishii hore la xukumay isla markaana dambiyada uu ku eedeysan yahay maxay yihiin imise lacaga ayaana lagu eedeynayaa in uu la baxsaday Republican ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota isla markaana sidoo kale ku jira hoggaanka xisbiga Republicanka ee aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ayaa waxa uu si kulul u weeraray soo galootiga Mareykanka oo aan doonayn in shacabka Mareykanka ay ku dhax milmaan haddaba isagoo qamiistii ka hadlayay kulan ka dhacayay xarunta Capitol Hill ee Congress-ka ayaa xildhibaankan oo la yiraahdo Tom Emmer hadalladan aan idinla wadaagi doono uu ka sheegay soo galootiga Mareykanka oo Soomaalidu ay ku jirto haddaba inta aan arrintaasi u galin xildhibaankan horta muxuu yahay hoggaanka uu ka hayo aqalka wakiilada gaar ahaan xisbiga Republicanka muxuu yahay degmada laga soo doortana maxay tahay oo waliba Soomaali fara badan ay degan yihiin oo aan raba inaan idinla wadaago xildhibaankan ilaa iyo sanadkii 2023 ayuu ku jiray Congress-ka Mareykanka degmada lixaad ayaana laga soo doortaa degmada lixaad sida aad maapkan ka aragtaan waxay ka kooban tahay St. Cloud oo Soomaali badan ay degan tahay Buffalo Lion Lakes iyo sidoo kalena Waconia ayay ka kooban tahay marka November marka la gaaro Soomaaliyay xildhibaankan ayaan loo dhug la'aanin kulay doorasho ayuu galaya marka waa majority whip uu ka yahay aqalka wakiilada gaar ahaan xisbiga Republicanka ayuu u yahay majority whip muxuu yahay anshaxa ayuu u ilaaliyaa xubnaha Congress-ka Mareykanka gaar ahaan kuwa Republicanka wuxuuna xaqiijiyaa in xubnaha xisbigiisa ajendaha xisbiga ay u codeeyaan waxauna indha iyo dhaga uu u yahay ayaa la leeyahay hoggaanka xisbiga isla markaana waxa uu tiriyaa codadka ka hor inta xubnaha xisbigiisa aysan codeynin oon lagu dhawaaqin sharciga loo codeynayo cod ku filan ma haystaa in kale ayuu sidoo kale uu xaqiijiyaa marka waxauna sidoo kale xubnaha diidan ajendaha xisbiga uu ka dhaadhiciyaa in ajendaha xisbiga ay u codeeyaan marka ninku waa nin noocaasa isla markaana anshax dhowraha aqalka wakiilada ee Congress-ka gaar ahaan dhinaca xisbiga Republicanka marka hoggaanka xisbiga ayuu ku jira hadda ka hor xitaa markii uu Kevin McCarthy iska casilay afayeenka aqalka wakiilada xubnihii is sharaxay ayuu ku jiray walow aan la dooranin marka isagoo kulankaasi qamiistii ka hadlayay ayaa hadalkan uu sheegay sanadkii 2015 10 sano ka horna hadal uu Soomaalida la ka sheegay iyo midka hadda uu sheegay oo iskhilaafsanna waan idinla wadaagaya marka xildhibaankan waxa uu yiri haddii wadankan weyn aad timaado waa inaad fahantaa uu yiri waxaad u imaanaysaa inaad qof Mareykan ah aad noqoto marka waxa uu sheegay anagu waan u dabaaldegnaa uu yiri dhaqanada kala duwan waanan ku faraxsanahay arrintaasi as long as you are American ilaa inta aad tahay qof Mareykan qof kasta oo soo galootiya dhaqankiisa waan u dabaaldegnaa qofku haddii uu yahay uu yiri Italian ma kala jecel uu yiri haddii uu yahay Italian Polish haddii uu yahay waa Poland amaba uu Soomaali yahay waxa uu yiri haddii aysan anaga nagu milmaynin marka dhaqankeena haddii aysan qaadanaynin dadka soo galootiga ah ee Mareykanka imaanaya
waa inay dib ugu laabtaan halkii ay ka yimaadeen sidaasi ayuu yiri xildhibaankan marka waxa uu leeyahay dadka soo galootiga ah dhaqamo kala duwan ha lahaadaan laakiin Mareykan markay yimaadaan waa inay dhaqankeena qaataan oo inaga ay nagu milmaan hadalkaasi oo cambaareyn xoogan ay ka soo laabatay. They let immigrants who come to this country not wanting to assimilate lie, cheat and steal from them our money. Guess what? There is nothing racist about calling out a criminal. If you come to this great country, you have to understand you're coming here to be an American. We celebrate everyone's culture. We're happy with that as long as you are an American. Celebrate your culture. I don't care. Italian, Polish, Somali. Okay? But they don't assimilate. And if they don't assimilate, then they should go the hell back to where they came from. Ilhan Umar oo ah gabadha kaliya ee Soomaalida ah oo ku jirta Congress-ka Mareykanka ayaa u soo jawaabtay barteeda Facebook ayay waxay ku soo qortay waa dhaxgalay ayay tiri oo ilaa iyo Congress-ka ayaaba gaaray laakiin hadda doqonkan waliba waxa uu leeyahay waa inaad dib ugu laabataa halkii aad ka timid. Ilhan Umar ayaa hadalkaasi ugu soo jawaabtay sidoo kalena Jaylaan Xuseen oo isaguna hay'adda xuquuqda muslimiinta u dooda Mareykanka ee CARE gaar ahaan xafiiska ay ku leedahay gobolka Minnesota ayaa isaguna arintan wax laga weydiiyay waxa uu ku tilmaamay arintan inay tahay mid aan la aqbali karin in xildhibaan fahansan ayuu yiri dastuurka Mareykanka uu arintan ku dhaqmo ma garan karo waxa uu kala jeedo oo aan ka ahayn in arintan ay tahay cunsurinimo waa kan isaguna Jaylaan Xuseen oo arintaasi ka hadlay. I'm disappointed with the congressman. For a congressman who understands the Constitution of the United States and how that operates to just blatantly target a community, it's unacceptable. I've lived here for all of my life now. I'm as Minnesotan as you can get. I deer hunt in Minnesota. I do all the. So what is he talking about? I don't know what he's talking about. I think other than being racist against Somali Americans. Hadda marka isla xildhibaankan oo sanadkii 10 sano ka hor 2015 ka hadlayay kulan town hall oo community-giisa magaalada St. Cloud oo kula hadlayay ayaa waxa uu sheegay hadalkan waxana uu yiri haddii aad wax iga weydiineysaan dadka soo galootiga ah sida sharciga ah ku yimid wadankan isla markaana doonaya nolol wanaagsan inay u helaan nafsadooda iyo waliba qoysaskooda arrintaasi waan taageersanahay waxana ugu dambeynta uu leeyahay marka qiimeyn la sameeyay ayaa waxay muujinaysaa Soomaalidu inay tahay dadka sida ugu dhaqsiyaha badan ku milmaya shacabka Mareykanka arrintaasi oo xitaa markuu dhameeyo la leeyahay oo sida muuqaalka aad ka arki doontaan ama codka aad ka maqli doontaan dadku ay u muuqdaan taan hoolka joogay xilligaasi hadalkaasi in aysan ku qaracsanayn marka waxa uu leeyahay qiimeyn la sameeyay ayaa waxa ay muujinaysaa in Soomaalidu ay tahay dadka sida ugu dhaqsiyaha badan ku milmaya shacabka Mareykanka oo dhaxgalaya bal hadalkan 2015 uu sheegayna codkiisa bal wax yar ila dhageysta. And if you're asking me how I feel about immigrant populations who are in this country legally and who are actually trying to find a better way for themselves and their families, I support it wholeheartedly. I mean, the Germans had the same problem when they came over. The Polish had the problem. The Chinese had the problem. The other people, I'm going to tell you, the Somalis, according to the measurements that have been used over time, are some of the fastest assimilating populations that we've had. xildhibaankan marka la yiraahdo Tom Emmer bishii January 20keedii sanadkan hadda 2026 aynu ku jirno ayaa markii arrintan musuqmaasuq ay soo baxday Soomaalida lagu eedeynayay ayaa waxa uu soo saaray sharci loogu talagalay in wax looga qabto dhalashada loogala laabto dadka musuqmaasuqa lagu helo kuwa argagixisada inay ku biireen ama xiriir la leeyihiin lagu helo kuwa jaajoosnimada ama basaasnimada lagu helo iyo kuwa dambiyada waaweyn gala marka sharcigan waxa la yiraahdaa Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Scam Act waxa la yiraahdaa marka dawladdu waxay doonaysaa inay ku kala cadeyso cadeynta ay u heli karto in shakhsiyaadkan marka ay dhalashada ay qaadanayaan in qaab sharci ah ay wadankan intii ay joogeen ka hor ay ku joogeen marka sidoo kale sharcigan waxa uu sameeynaya in qofka marka dhalashada uu qaato 10 sano gudahood inta 10 sano gudahood uu dhalashadaasi haysto hadii lagu helo musuqmaasuq oo dawladda inuu musuqmaasuqay ama lagu helo inuu ku biiray ama xiriir ladaha urur argagixiso oo ajnabi ah ama sidoo kalena lagu helo dambiyo waaweyn oo felony ah ama espionage lagu helo in sharciga laga laaban karo xildhibaankan marka bishii January ayuu sharcigaasi soo jeediyay walina Congress-ka waa uu hor yaala oo ma aysan ansaxin ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan idinla wadaago Cabdikariin Iidle oo qofkii labaad oo kiiska Feeding Our Future
dadka loo haysta ka mid ahaa marka laga soo tago haweeneydii caddaanka ahayd ee ururkaasi madaxda ka ahayd ee Feeding Our Future oo la yiraahdo Amy Bag isla markaana 21kii bishii hore 41 sano iyo 6 bilood lagu xukumay iyo inay 243 milyan ay dawladda u soo celiso ayaa Khamiistii lagu qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. FBI-du waxay sheegtay in ciidamada FBI-da iyo ciidamada sirdoonka Soomaaliya ee NISA ay iska kaashadeen soo qabashada. Marka sawirkan ayaa laga qaaday markii la soo qabtay kadib sida aad aragtaan ninkan oo 42 jir ah oo Cabdikariin Iidle waxa la leeyahay la taliyaha ugu horeeya ee haweeneyda Amy Bag ayuu ahaa. Marka lacaga badan asaga ayaa Soomaalida u geyn jiray haweeneydaasi intuu u furo ururada ay lacagaha ay ku qaadanayeen kadibna lacaga kickback ayuu ka qaadan jiray. Marka 31 dacwadood ayaa lagu soo eedeeyay sanadkii 2022 markii arrintan ay soo shaac baxday waana wadankana waa uu ka baxsaday 4 sano ayaa la baadigoobayay. Marka ninkan 30 sano amaba ka badan oo xabsi ah ayaa laga yaabaa inuu mutaysto. Lacagta lagu eedeynayo waxay tahay 5 milyan lacag ka badan in uu qaato laaluush ahaan u qaatay iyo waliba kambaniyadii uu samaystay in uu lacagahaasi uu ku qaatay iyo kuwii kickback uu helayay. Lama oga xilliga Mareykanka dib loogu soo celinayo laakiin waxaa laga yaabaa in Isniinta iyo wixii ka dambeeya dawladda Mareykanku ay dib ugu soo celiso Cabdikariin Iidle gudaha wadanka Mareykanka si uu cadaaladda u wajaho. taliyaha FBI-da Mareykanka Kash Patel ayaa qoraalkan maanta bartiisa X ku soo qoray. Waxa uu yiri Cabdikariin Iidle oo ka mid ahaa dadka hoggaanka u ahaa musuqmaasuqii ugu ballaarnaa ee taariikhda Mareykanka soo mara oo 250 milyan lacag ka badan lagu musuqmaasuqay, taasi oo loogu talagalay caruur nugul in lagu siiyo raashin isla markaana lacagihii ay qaateen ay ku gateen gawaari raaxo iyo guryo waaweyn iyagoo waliba aan isceebsanaynin. Waxa uu yiri inagoo uga mahadcelinayna FBI-da iyo sidoo kale hay'adaha kale ee nala shaqeeya waxaan ku qaabanay Soomaaliya ayuu yiri haddana cadaaladda ayuu wajahi doonaa. Marka waxa uu xaqiijiyay in hadda Cabdikariin Iidle lagu xiray magaalada Muqdisho sida aad arkaysaan uu sheegay taliyaha FBI-da isagoo sheegay in kiiskii Feeding Our Future ilaa iyo 70 xubnood ka badan dacwada lagu soo oogay waxaana maalin kasta aan ka shaqeynayna ayuu yiri sidii musuqmaasuqa aan wala dagaalami lahayn guud ahaanba wadanka Mareykanka. Marka taliyaha FBI-dana waa uu xaqiijiyay sida aad arkaysaan in Cabdikariin Iidle lagu xiray magaalada Muqdisho isla markaana waan arki doonaa xilliga dib loogu soo celiyo. Waxaan ognahay in sidoo kalena Saciid Cabdullaahi Ereg uu isaguna isu soo dhiibay 10kii bishan isla markaana maxkamadiisa ugu horeysa hadda la soo taagi doono